ninkan aftabartu waa dooday ninka dooda la soo baro horta waru ka hada adiga aduu nasiib Allah da waqti wal waxir leedahay guddi doorasho aan leedahay وكذا شرعي واكنا هذا شرعي واكنا دولة الشقة هدات قبضته هدات وزير أنا عاود هدات هذا كور هدات وزير أنا ترى والوحيد أوتوماتيك ما وكذا ده شرعي وحق اللي جربه هذيك هدات مسؤولية هذا الله هدات شيء أوتوماتيك والوحيد وضن والبان السدا وحسوا أبابول وانمك جزيرة وحسوا أبابولي سوق وحسوا أبابولها هي فيري وحاس حدينا منايت مين لو هندد منايت يكون نقون كرا ترك رحاسه ارتكيه حل marka xiriirka dawladda goysay saaka banaabax xamar kala xogkaadi ma yada murashaxiintu ba gaaleen xasanu dad mijaanis saan aday buusi okaadi ninkan hasugi waqtigiis ninka hasugi maya international community فيري international community فيري international community isan muuqanin in dawladdu aysan doonaynin doorasho bannaankaas la soo dhigo oo ummadda Soomaaliyeed la hor dhigo oo markaas dadku ay ka wada qayb galaan miyay taasi isa jirin ayadoo la leeyahay ciidamada bannaanbaxa ilaalinayo ninkan wax rabaa doodayda inuu idaayo haduu tahay jawaabo ay dhawaab inay dadku dareenkooda ku muujiyaan inay dadku Cabdullaahi adiga dhahay doodayda iida Cabdullaahi adiga dhahay fiiri hadda taas adiga cadeynteeda laga raba Cabdullaahi taas fiiri hadda taas cadeynteeda adiga laga raba hadda fiiri hadda ogtahay in war u dul qaadan way waran uma dul qaaday waran ma sugi karo in war sugi way waran ma sugi karay Soomaalidu tiraahdo وكذا listen to me and دمستو horta دمستو ninkan jana fanamis ninkan amus fiiri adeer dawladii hadii loo arkay in iyadu doonayso inay macnaha sida siyaasaddu sheegay in wax farmaraqsato ay rabto oo doorashadiiba ay sadexda soo dhigin muyaan khilaaf kala duwan imaani adeer doorashada dhexda la dhigay waxa la jeedo horta ma fahmin marka hore way doorashadu dhexda ma taala cidma mas'uuliyad gaar ah leedahay maamulka Jubbaland wuxuu leeyahay mas'uuliyad ku leeyahay kan Puntland mid ku leeyahay kan Hirshabelle mid ku leeyahay mas'uuliyaduna waxay tahay in guddiga soo magacaawdaan tan kale doorashooyinku waxay ka dhacayaan intooda badan maamul goboleedyada ka soo dhacayaan haday aqal sare tahay haday aqal hoose tahay nimanka ayagu meelihii ay deganayeen la isku soo dooro lahay anigu ma garan karo waxa ay ku diidi karaan doorasho dawladdu waxay ka qaban karto ma aqaanba hadii la yiri state kasta laba meel doorasho looga soo qabto hadda taas waa iska cadahay dhaxda waaba taalaaba waa mid kale waxaad soo qaaday dhacdooyinkii iyo waxaad ku sheegtay international community heshiiskan daraf ka may saxiixin heshiiskan waxa saxiixday shan dawlad goboleed iyo dawladda federaalka laakiin cadaadis ayadoo ku yimid cadaadiska taasa maya adeer international community soo Kenya kuma jirto xal qaranka in kala goonaysa musharaxiinta aad sheegaysa kuwa meesha u kaadi bal meesha fadhiyay laskama dhitrik raxasa artikay xal marka xiriirka dawladda goysay saaka banaabax xamar kala u kaadi ma yada murashaxiintu ba gaaleen xasanu لد مجانس أنسان أضيف بوسي وكذا نكان هسوقي وقتيس نكان هسوقي مايا international community فيري international community وحل الدوران أيضا ما قد واحد دوران أيضا ما دورشة الصومالية كده حس الصومالية هنا كإيمانسة international community وكرجوكتي كل هذا waxay soo dhax gasho meesha ma yeelan heshiis baa la saxiixay cid ka baxda hadii xataa cid cadaadinayso cid ka baxda cadaadinaysa hayo wadeeq ku soo laabanay adoo raala ma adoo raala please hayo inaan ka jawaabo dooda Cabdullaahi waxa weey sideedaba maxay ahayd ii sheeg dastuurku waa heshiis bulsho ay Soomaalidu ku heshiisay dawladnimaduna ka dastuurka ayuu ku dhisan yahay waxa waaye dawladdu heshiiska ay jabisay waxa weeye guddigii doorashada ayaa waxay ku soo dartay xubnihii sirdoonka iyo taageerayaasheedii iyo shaqaalihii rayidka halka dawladdu waxay ku jabisay qodobka 110aad ee dastuurka farqadiisa G ayay ku jabisay waxa la rabaa in aynan maaragtay isha guddiga dad dhaxdhaxaad ah oo muthaqafiin oo Soomaalida u dhaxayn kara shaqadaan gudan kara inay ahaadaan ayaa la rabay muwaadiniinta iyo muwaadiniinta ma xasan oo kaadi muwaadiniinta iyo musharaxiinta dawladdu kaligeed inay tartamayso maaha
xaq bay ku leeyihiin dalkan ayay u dhasheen doorashada way ka hadli karaan wax kasta oo dareenkooda ayay ka hadli karaan ma ahan in maaragtay ii sheeg cabdulaahi uu yiraahdo sharciyad ma ahan iyo kuma fadhida iyo dareenkaadii waa ka hadli kartaa xaq baad leedahay muwaadin baad tahay doorasho oo maaragtay dhexda taalla oo adigu aad ku tartami karto ayaad u baahan tahay inaad ku tartanto haddii maaragtay dowladdii iyadu dalka hogaaminaysay iyadu sharcigii jebisay la rabay in tubta toosan dowladdu lagu hago oo loo sheego weeye waayahay maxamed deeq waa ku siinayaa laakiin hal su-aalan ku celinayaa haddaad sharci jebinta sheegtaan guddigiinna oo haddeertaan magacaaban dowladu idinma magacaaban niman musharaxiina oo u tartamaya xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa guddi idiin magacaawda meel ay dastuurka ugu taalla adigu ma sheegi kartaa inay nin musharaxo inuu adiga ku magacaabo haddii ma ogtahay musharaxiinta iyo muwaadiniinta Soomaaliyeedba dalkan ay wax ku leeyihiin dawladdu ma aragtay geedaha iyo dhagxaanta ma xukumayso dastuurkuna waa heshiis bulsho mar haddii maxay ahayd ii sheeg iyadu ay jabisay oo dalkuna uu galay xaalad hubanti la'aana la og yahay waxyaabihii ma aragtay ii sheeg labadii sano ugu dambeysay ay dawladdu soo samaysay walwal iyo walaac badan laga muujiyay cabashooyin badan la muujiyay dawladdu ay dhigaha ka furaysatay waxa laga maarmaan noqotay in guddigan la magacaabo ee guddiga badbaadada doorashooyinka qaranka waayahay haye maxamed waxaan rabaa horta laba arrimood baan rabaa inaan xooga saaro oo ku saabsan ninkan ninkan walaalkay ah mursal waxay tahay waxaan fadhino waa TV ummad badan ay fiirsanayso milyanis live-na naloo daawanayo sideedaba ummaddu laba qayboodba way tahay dad shacab ah iyo dad waxgarad ah oo siyaasiyiin oo wax walba fahmi kara waxaan aniga kula fadhiyaa fahmi waaye litijimeedka iyo nidaamka sharci golaanaha iyo guddiga caawa halkaan rabto inaad ummadda u sheegto iyo waxa ay qaban hayaan iyo waxa ay ku soo kordhin karaan doorashooyinka maanta iyo wajidka loo socdo sideedaba waxaa stakeholders loo aqoonsaday waa dawladda iyo maamul goboleedka sharciga maanta laga doodayo iyo arrimaha taagan iyaga unbay dhex taalla dee xal ka gaarayaan iyo haddii iska gaareenba hadday musharaxiinta iyo nimanka hadda aad inoo sheegtay ay awood u baahan yihiin in la tixgeliyo shirkii lagu qabtay xamar baa qayb laga siin lahaa haddii stakeholders loo ogol yahay inay ka mid noqdaan waxaa ii soo haray Soomaaliya maanta waxaa joogta ugu yaraan 50 qofood oo musharaxiin ah saasay u samaysan karaan qayb ka mid ah oo ay dhihi karaan aan cod ku yeelano sharci iyo qodob iyo nidaam dastuuri ah ee ogolaanaya walaalahay maanta wax alla waxay ka sheegaan arrimahaas hadda aanu ka hadlayna doorashooyinka anigu garan maayo meesha uga soo baxay aaminsan tahay dawladda waxa lagu dhaliilaya inay sax yihiin oo sababtoo ah miyaysan muuqanin in dawladdu aysan doonaynin doorasho bannaankaas la soo dhigo oo ummadda Soomaaliyeed la hor dhigo oo markaasi dadku ay ka wada qayb galaan miyay taasi isa jirin sharci iyo nidaam cusub hadda soo baxay mise tii aanu haysano ku salaysnay dastuurka sideedaba dastuurka waxaa qabta guddiga doorashooyinka oo diyaariya dawladda waxaana qayb ka ah oo isla xiriir arrimahaas la sameeyaan waa stakeholders maamul goboleedyada ah guddigaas waxaa loogu talagalay inay sameeyaan labada aqal ee noqon doona baarlamaanka iyo aqalka sare sideedaba musharaxiin la islama gaarin wali musharaxiinta waxaa qabta oo sameeya oo hadday ka rabaan cadaalad iyo in wax banaanka la soo dhigo guddiga uu baarlamaanku samayn doono oo guddoomiyaha guddiga adiga haddaad haysatay haddii dawladdu guddigii haysato oo ninkii aqalka sare macnaha maamulayay oo halkaas uu leeyahay war waxaanu sharci ma ahan oo ah nin la soo doortay haddii uu yahay oo guddigiiba la isku haysto musharaxiintiina ay leeyihiin war waxaanu annagu waxaan rabnaa inaan tartano ninka qofka lala tartamayna waa madaxweynihii Soomaaliya la tartamayna haddii ay leeyihiin ee banooniga soo dhig dhulka haddii la leeyahay miyaysan fawdo noqonaynin wax walba xasan arrimahan aan ka hadlayna dastuuriyan waxa ka hadli kara oo dawladdu ku qabsan kara oo runtii la hagaajin kara waa stakeholderskii shalay go'aanadan la gaaray haddii ciladu jirto mana rabo inaan dhaho maanta hore u dhacday maxaan maanta loo diidan yahay oo xasanba waad ogeyd 22 baa ku jirta shaqaale ah Cumar Dhagey oo la taliyihiisaba gogaamiyo ah waxaan ka wadaa ma way ka tirsan yihiin iskuma hayo waxa laga hadlayaba oo dawladii hadda ay ka hadlay anigu waxaan ka hadlay waxay tahay nidaamkan cusub ee dhashay oo musharaxiinta la baxay oo dastuuriyan iyo sharci ahaan iyo nidaam ahaan meel iska soo galaan aan jirin maanta dastuurka nidaamka jira iyo doorashooyinka
in laga dhigo stakeholders qayb ka mid oo codkooda la dhageysto maanta muqdisho waxa culayska loo saaray wax kala maaha axmed madoobe iyo ninka la yiraahdo dani ma iman karaan muqdisho waxna kama samayn karaan dadka culayska saarahayo arbishaad samay ya tamayo dawladda xaadigan centralka degan sida qayladii waxaan qabiil baa lagu kicinayaa nidaamka kan aad arkayso anigu hadda waxaan ka naxsanaa oo aan aad uga yaabanaa waxay tahay wixii qabiil hoosa laga dhigay nin maanta masab iyo ummad inuu hogaamiyo rabo yaa ka dhigi kara waxa soo abaabulay waa nimanka jaziira waxa soo abaabulay waxa soo abaabulaya fiiri waxaas hadayna manaynta meel lagu handado manaynta ku noqon kara lama gaarin kow xasan waxaad ii macnaysaa marka waxaan rabaa in la ii macneeyo mursal anaa hadlahay sir sug hadda madaxweyne farmaajo xillig intuu xafiiska joogi doono waa konton beri handadaadii kamid kaliya ayaa u harsan fiir walaalkay handadaadii kamid tahay meeshaan fiiri meeshaan waa nidaam wasiirku waxaan ka rabaa su'aashan qabaa waxay maxay kordhin karaan iyagu ay ku kordhin karaan inay doorashooyinkan sida ay rabaan iyo waxa ay rabaan ka sameeyaan waayo soo laabanayna Cabdullaahi waxaan ku siinayaa hal arin su'aal baan rabaa inaan gashto dadka ku nool magaalada Muqdisho ama gobolada dalka Soomaaliya markay rabaan inay dareenkooda cabiraan soo kuma cabiri karaan banaanbax iyo inay soo bandhigaan oo ay yiraahdeen annagu waxaan rabnaa saas inay dhahan Soomaa maxaa markii banaanbax dadku inay sameeyaan ay rabaan meel walba loogu arkayaa wadooyinka xiran meel kasto ciidan joogo meel kasto oo qofka uusan dhaqaaqi karin baabuurta dhaqaaqi karin waa maxaa ra'yiga dadka loo diiday هذا الرأي dadka waxa kamida nimanka jaziira ku shirsan baa kamida cididiisa ma aragtay cid shirka hor istaagaysa ma aragtay niman anta isku yimiday sameystay dalad ay leeyihiin waa ku talinaynaa baa jooga hadii dawladdu waxdiidiisa ku sii diilad waxa ku soo reebana baxa maanta horta banaanbaxo maanta uu iska cadaayo waxa lagu soo aadiyay xalay baa Kenya la eriyay marka groupka Kenya ay soo dirsatay baa dadka abaabulay banaanbax dabajaxyo watana adigu waliga ma aragtay caalamka meesha wax xageysana waa tagtay meelna haddan isku nool joognay waa wada arkayna wixii maanta dhacayo idaacada goobjoog soo tabinaysa banaanbax dabajax ridaaya oo waliba yani bada waa hadad iska indhatirayso waa meesha xaqadu leedahay ma ogtahay laakiin anagu waxaan ciidan qasbi maysan waxaan aragnaa waa sheegina banaanbax yes annagana waa kana ana soo duubanaan haya waa ku tusaya iyadoo la leeyahay ciidamada banaanbaxa ilaalinayo ninkaana waxaan rabaa doodayda inuu ii daayo hadhow tahay ii jawaabo ay dhawaab iyadoo la soo duubay la leeyahay waa ciidamada banaanbaxa ilaalinaya waa arkaynay midda kale ciidamada maanta aan arkayna xataa waxa la dhigi karaa ciidamo beelad maahan inay shabaab iyo waxaayana ba dhici karta waa siday u hubeysanaayeen si oo qabiil u hubeysanaa kara ma jirto tan kale waxay jawaab u ahayd waayadan labada bilo jaziira shirka ka socda nimanka jooga waa niman la yaqaan oo hawiye ah waxay ku doodayeen 92 loo naqayaa arinta hadii aan la sameeyo definitely tii un bay bilaabeen isku dayga caankaas ay 92 in loo noqdaa meesha adeer doorashada dil rabo waxa haday ku soo celisay saaxiibada tir ma Jubaland iyo Puntland maamul gol yes waa kamid laakiin qayaarkooda leeyahay waxay saxiixeen bay diideen ninkan waxa rabaa inuu doodayda daayo nimankaas waxbay saxiixeen waxay saxiixeen waxana wax loo saxiixaa inaadan hadhow diidin toddobaad kasta ayaga saxiixay in doorasho saas ahaato dawladdu intaas inay keento ayaguna intaas keenaan ayaga saxiixay goormay diideen xaqii ku diiday waa kuwa diiday oo yiri ku dariimayna yiraahdeen dani baa u dambeeyay ra'iisul wasaare markuu u tagay waa ka yiri ayadoon gada laga soo bixin ilaaha kugu dhaariyay gada xataa territory-da isagoo xukumo kuma jirto bal fiiri adiguba gardarradu intay gaarsiisantay maamul war ninkan aad soo barto waa doodaya ninkan doodaha la soo baro horta war u kaada adiga aduu nasiib aad leedahay waqti wal waxir leedahay guddi doorasho aan leedahay sharciga waa kana hada sharciga waa kana dawladda shaqadeeda hadaad qabato hadaad wasiirana caawa hadaad tiraahdo ka waran hadaad wasiirana tiraahdo waa la waxir automatic may u kaada sharciga waxa laga rabaa adiga hadaad mas'uuliyad aadan lahayn hadaad sheegato automatic waa lagu xiraa wadan walbana sida tan kale aan u soo noqdo doodeydii waxa tiriyaad diiday ninka anta ra'iisul wasaaraha qaranku baxay adar waxa saxiixday baan sidnaa inaan isla fulnaan rabaa ugu tagay ee ku yiri horta waa in gada ciidanku ka baxo xuduudda ciidanka jooga Soomaalida ciidanka Kenya ka soo horjeeda waa inuu ka baxo shuruud ka dhigay meelaha heshiiska uga qorad male asaga ka baxay xuru u yahay kuwaan u dhaanyaa kuwaan meelay wax ku diidaan
iyo meel wax ku yeelaan ba mal hadday ma ogtahay dooddu maaragtay waxaan rabaa hal arrinaan kaa rabaa si ninkan wuxuu mayma waa sheegay siinayaa laakiin su'aal may waa siinayaa laakiin su'aal baan ku weydiinaya su-aashan ku may sug waa ka jawaabaysaa may waa ka jawaabaysaa sug cabdullaahi waxaan rabnaa in maamul goboleedyadii dawladdii ay isugu wacdo oo ay yidhaahdeen haddii khalad la arkay haddii ama qof walba ha qaldanaato in inta mar kale la isugu yeero madaxweynuhu yidhaahdo ha la isu yimaado shir ha la isugu yimaado maxaa qaldamay la gar dhigto maxaa diidan ra-iisul wasaarihii baxay oo uu yiri walaalayo haddii wax naga khaldan yihiin soo baxa oo imaada oo soo gala uu ku yiri ee shuruud looga dhigay intaanan xamar imaan annaanan guddi darin waa in horta marka hore ciidanka geda ku jira kenyaanka kasoo horjeeda inaad ka saarto shuruudda koowaad laga dhigay marka de maxaaba xasano waxaan rabaa inaan ka hadlo doodii maogtahay waxaa loo yeelayaa qodobo maaragtay isheg farqiyo badanaa loo yeelayaa waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda maanta ka dhacday magaalada muqdisho horta waxaan xanuunka la qaybsanaynaa dhibaatooyinkii soo gaaray iyo dhaawacyadii la qaybsanaynaa bulshadii isu soo abaabushay ee maanta qaybaha magaalada muqdisho banaanbax ka dhigaysay waxaana u banaynaya qodobka 20aad ee dastuurka farqadiisa 1 iyo 2 ayaa u banaynaysa inay dadku dareenkooda ku muujiyaan inay dadku Cabdullaahi adiga dhahayay doodayda iida Cabdullaahi adiga dhahayay fiiri hadda taas adiga cadeynteeda laga raba Cabdullaahi taas fiiri hadda cadeynteeda adiga laga raba hadda fiiri hadda ogtahay in war u dul qaadan way waran uma dul qaaday waran ma sugi karo ogtahay in war sugi waay waran ma sugi karay Soomaalidu tiraahdo waxa weeye maxay ahayd ishag dawladani federaalka ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayo waa lagu ogaa inay dadku markasta ay weerarto iyagoo dareenkooda muujinaya meelo badan ayayna ka soo samaysay waan ognahay taa heshiiskii markaan u noqdo 17kii bishii September halkan heshiis baa ka dhacay heshiisyo kale ee madaxda dawlad goboleedyadu iyo dawladda federaalku ay gaareen ayaa jiray sidaad ogtahay Jubbaland oo kale markaan ka hadlo khilaaf gaamuray ayaa jiray oo muddo soo jiitamay oo dhusmareeb maaragtay isheg maaragtay la isku soo arkay ayaa jiray si doorasho loo aado in la xalliyo tabashooyinkii jiray ay ka mid ahayd gedo qaybahaas ayay ka mid ahayd in maaragtay isheg laga soo baxo ciidamadii laga keeno si doorashadii lagu qabto Puntland waa ogeydo way ka sii horeysay waxyaabo badan maaragtay isheg ayaa la isku hayay labada dawlad goboleed waxay ka mid yihiin dawlad goboleedyada maxay ahayd isheg memberska ka ah dawladda federaalka ayay qayb ka yihiin heshiisna waxaa lagu ahaa in dalkani doorasho dadban aado hal maalin ay ka wada bilaabato guddigiina la soo magacaabo iyagiina ay soo magacaabaan dooddu waxay ka bilaabatay in guddigii ay dawladdu soo magacowday ay maaragtay isheg cilado badan ay ka soo baxday oo ay ku jiraan shaqaalihii rayidka sirdoonkii iyo qolooyinkii kale ee taageerayaashii caanbaxay ay ku jiraan ayaa soo baxday waxaan rabnaa annaga in la gaaro heshiis siyaasadeed oo wadahadal la isugu yimaado oo doorashada dhexda la soo dhigo oo heshiiska cid diiday ma lahan waa dhegeyso waa la ixtiraamayaa heshiiskaas siyaasadeed waxaan rabnaa in la fuliyo laakiin in waxyaabihii maaragtay ii sheeg tabashadu ay ka timid maaragtay ii sheeg la iska bogsiiyaa oo wada hadal la isugu yimaadaa waxaan rabaa أنا كعطسناي صاحبك أنا كعطسناي دوسي وحسن ما تنتهي وحرب أرتا موقت أنا كدق نضاد داينا ضد بدن في رسنا يعني أنا نو كيسين أنا وافق جنو درين كده دوينها يتسترك نو يالو جيسك دورش كونوا معها ومتقان قارتي ودورشون ساق بسجر تبعنا أنت أنا تيم كانوا لون دورش دلك كده عجرت أنت حسست أنا جوب جوجا هنا أفرش جاري صار عض نول بنحل بالسوق تي تنكر رئيسي واجبني هذا صاحبك وحكو ضاضي وحكو جرد الدولة تاجر سنة وحلمده ولتليه مدحوينها لنا على الشرع عمر أبو كاتو عمر نجيب قدومية كأه عندكم قبضة ميجر وكذا وحكو جري وزير استيت كهير استيت هكو جري قديده وقاركور قدومية كه هو أوجه صاحبك والمسو قد بي حس الشيء intaas muxuu ahayd wax ku soo waday asaga looga gadan bi wuxuu heshiis la ahaa dawladaha gobolka Kenyaanka heshiis la ahaa
etoobiyaanka heer ay gaaraan haddii aan xasan la dooran dhibaa dhaca wasiirka hore arrimaha dibadda uu yidhaahdo waa in xasan la doorto si aan waddanka u gelin heerka u kaadibal etoobiya waxay taagan tahay idii tallaha shaqo ku milay anigu I don't care waxay taagan tahay maya de aniga historian ka hadloohaa u kaadi meel kasta loo adeegsado ma historian ka hadloohaa aniga waxaan ka hadloohaa wax maanta dhacda aragta waa kaaga jawaaba laakiin aan 16 wax dib u jallacna ku saaxad adoo mahadsan doorashan joognaa moogto wax kasta waxay u baahan yihiin meel laga raad raaco tusaalahan markaad leedo gurigan markaan soo aadayo waa 16 bay ahayd siday u dhacday baan ka hadlay sana ka soo wareegtay kuma isku hayno maanta ma dhihi kartaa 4 sano oo la rabay in dawladdu ay wax qabato oo ay wax bedesho oo wax keentay miyaan maanta istaagi karnaa dhihi karnaa xasan sheekh bashar doorashadii saas uu sameeyay miyaan dhihi karnaa maanta aad oo mahadsantahay dawladda wax qabadkeeda dawladdu waxay diyaarisay in one fadl isku darto maxamed cabdullaahi farmaajo intaan ognahay meelo badan uu ka sheegay goobo badan uu ka sheegay waxa diiday nimanka uu ka socdo war ninkan uu ka socdo waa siinay haysi nimankan uu ka socdo madaxweynayaasha hore diiday way one man one fadl way diiday nimanka fiiriya waxda la ogtaan sheegay dadku la ogay one man one fadl way diiday okay markay ayagu diideen one man fod oo yaani anigu xisbigan gudoomiyaha ayaguna axzaabi lahayn nimanka waxaan wada danaynaynaa one man fod maxamed cabdullaahi farmaajo ku shubanaya yiraahdeen way diideen taasi annaga iyo ayagii xisbiyada dhan waxay doorka ka qaaday siyaasadda doorkan ku lahaynay naga qaaday waxa la yiri doorashada bana la aadaya oo ku dhisan constituency ku dhisan taasi waxay umbood ka soo dhigtay maamul goboleedyada iyo qabiilka iyo odayaasha iyo ergadii ka soo dhigtay maxamed cabdullaahi hadduu diidi maagay waa lagu adkeeyey waad ogeed dhuusamareeb wixii ka dhacay markii dambe waa kii maamul goboleeda isu taga waxaad ku soo heshiiseen baan saxiixa yidhi caanbayeen waara afkiisa ka sheegay wixii maamul goboleeda ku heshiiyeen unbuu raacay waxa kuu soo haray marka midaan ah qofku waa inuu isku kalsoon yahay nimanka musharaxiinta ahay ee qaarkood hadda musharaxiin yihiin oo Shariif Sheekh Axmed iyo rag ka mid yihiin xilliga xasan musharaxiin ay ahaayeen farmaajo musharax oo ah حسن عدكو قبستي علي با كجرا علي با كجرا وكذب علي با كجرا عاشا كجرتي وكذب انت صوبن ما انك waa weydiistay وكذب ما هذا waxaan rabaa inaan dhameeyo ma doodadii aan ka jawaabayo moogtay waxaan uga jawaabayay xasan soo intaas wata oo inta $50 milyan wata ay adar doorashada calaf u diiday haddana ninka calaf u diiday waa u diidaya laakiin doorasho inay dhacdo principalku ha ahaado waxaan rabaa hal arrin horta inta badan markii khilaafku baaho oo la isu imaan waayo xalane amar ka soo baxa ayaa dadka la isugu geeya markii khilaafkii wan hal qof iyo hal cod sidii loogu hayay markii dambe dhuusamareeb dadka la isugu geeyay dhuusamareeb markii la isugu tagay ee la soo laabtana doorasho dadbanaa timid hal waxaana la isku haystay 6 bilood 7 bilood ayaa la isku haystay haddana maantay maxaa la isku haystaa war doorashadii hal keen miiska la soo saar ayaa la isku haystaa waxa imaan doonta in international community ay yiraahdaan maamul goboleedyada iyo dawladda ay soo yimaadaan oo la soo yimaado intaas dawladdu ma awoodi weysay ya inay iyadu tanaasul ka qaadato wax haday gar daran tahay hataa laga gardanay hataa inay tiraahdo kaaliya soo imaado aan gar dhigano miiskooda hal intaas dawladdu ma awoodi weysay tanasulaadka muhiimadda aad saartay oo dawladda xaggeeda ah waad ogeyd maalintii dhuusamareeb laga soo bilaabay ilaa lagu yimaado xamar waxyaalo badan oo tanasulaad baa la sameeyay sharciyo badan iyo nidaamyo badan iyo doorashooyin badan oo proposal loo keenay baa la joojiyay ilaa la soo gaarsiiyay wax lagu wada qanacsan yahay oo la saxiixo miiska la isla saaro cilada maanta jirta ma aha noocaas cilada maanta jirtaa ma aha noocaas maamul ka soo horjeeda ama diidaha iyo wuxuu saxiixan aanu ma arag Puntland oo tirmo ogoli inaan ka qayb galno doorashada sabab iyo reason waxay ka dhigteen gobolkaas gadal yiraahdo Axmedmudug gacanta loo galiyo wax kale ma hayno hadda fiiri waxaa dhashay nidaam kale oo loogu talagalay inay buunbuuniyaan dhibaatooyinka oo muqdisho ka dhashay dad aan laga filayn mas'uuliyiina oo mar walba oo ku tooda Axmedoobe hal su'aal oo Axmed waxaad jeceshahay in gobolka gadal laga hadlo adiga لكن هذا تاسع كوكل وحي تها متقانا محيل وكوع العرسي محمد أبو كردكت وحو يري ورمحا كينا يا مامل قبلت كبنتلا إنه قروي يا بوساسة كو قبصدو من الدولة دا كترس معيدة من الدولة دا ماشي جو وما يسوما قال مدك وحو يري معيدة من الدولة دا ماشي معناها مامل كأمة حبناية قرقر يا
gaalkacyo asaa ka taliya dhuusa mareebna asaa ka taliya sida baydhabo kalena sidoo kale waa ninkan wuxuu ku yidhi aniga iyo maamulkaygu ma tegi karna gadow ku yidhi marka haddawna tegi karin maamul goboleedkii wuxuu yidhi sideen hay say ugu jawaabaysaa gobolka gadaan kuu sheegaya maya ma aadahayo gobolka gedo waxay tashadeen maalintii doorashadii aad ogeed kismaayo ka dhacday iisug hadda oo maxaa hiiraan hadda ka goyshay hirshabeelle maxay la tashadeen muxuu u tegi waa madaxweynahoodu waa la mid xasan guutlaa wama tegi kara taas ma aha waaba joogaan mas-uuliyiin kale layskuma hayo nidaamka markii lagu heshiin waayo oo dadku ku qanci waayaan codkooda waa in la aqbalo la yeelo wey gobolka geda la yiraahdo axmed sinis aad waxaad ogeed ay dhaceen oo la murmay oo doorashooyinkii may waa ka tirsanta sida hiiraan uga tirsanta hirshabeelle waa ka tirsanta iisug haddana kaaga jawaabaya iisug axmed madoobe in la aqoonsado oo ku soo noqdo sanad bay ku qaadatay aqoonsigiisuna waa kumeel gaar ma ogeen nin awood imaandeed rasmi oo haysta ma ah waad ogeed dowladda centraalka inay hortaagneed maan 2 sano la sii waad ogeed sanad waa tagay dhowr bilood ba u harsan xasan Soomaaliya garan waxa meesha ka socdaan qof walba uu dareemi karaa because waxa way ciidamada maanta amaanka ay ka jira inay Axmed Madoobe dadka waarideynayaan ma aha ciidan qaran waay waad ogeed baarlamaanka inta jeer xasan oo ay soo go'aamiyeen oo ay soo jeediyeen in dawladda Kenya waxa ay ka wado gobolka Gado laga hortago xoolaha ku baabay hormuud wixii oo dhan baa ku tagay dad iyo xol iisug had oo miyay dadka laayay xoolo dhaqatadii maya xuduudka ka soo gudbi jireen xuduudka iyo inta ka soo gudbaa sida ceel waq maalin dadka loogu laayay ba iisug had walaal aan dhameystaan su'aal baad weydiisay xasan baarlamaanka qaranka xasan ciidamadooda u joogaan oo ciidamadooda ma baxaan yaa saaray حسن waxa fiican dood inaad markay boosiskeeda isku soo celiso fiiri gobolka gedo ma Jubbaland uu ka tirsan yahay mise gobolka hadda saaxiibkeeda jecel yahay hadda ka jawaab meel kale aadi hay ka jawaab example waxa kugu filan sida hiiraan cabashada u sameynayso bay gadan cabashada uga sameynayeen ninka li xasan اللي يراد أحمد مدوبي وأنا عن صدينا كون إني ستاجان قاعد تدرونه ده لقى معرين هاي أحمد مدوبي أنا ما أهل تيجي يسوق هذا قار ما يسوق إني تشلان شعب هي بنت هي أنا ولد جدت بعد ضد كويس يسقى له كوين عند مصر ويا أنت ما يورد مين هي حد ورد مين ما يهدد كذا لا أدو ما يواجهنا واجهنا عن كوري كذا وحي لما تام كوري بروبلمada gobolada ka taagan in loo xaliyo dawladda dhexeen hoos yimaadaan hadda oo dawladda wasaaradda arrimaha dibadda leedahay Jubbaland Jubbaland waa bitil Jubbaland hadda dawladda miyay toos u hoos imaanayaan oo rays soo saarta argolka ka soo baxa hadda fiiri Jubbaland ku qaba hadda soo ma aha yaa madaxweyne u ah hadda yaa madaxweyne markii la gaaro oo doorashada waa dal gaaro laakiin qolada way soo tagtay iisu marka wax gaaraba dalka laga wadamay waxa dalka laga wadamay maxamed waqti waqad maxamed waqti waqad tan ala soo isgaliyay maxamed waqti rabaan ka hadlo waxa way foodooyinka Soomaaliya ka taagana waxa kamid ah ku su'aasha ugu horeysa aan weydiiyay walaalkeena waahid waxa nidaam iyo sharci iyo dastuur iyo istixgaaliye kala dambeyn baa wadanka lagu joogaa nidaamka uu ka tirsan yahay afayeenka u yahay يعني هذا ضدك قوي إني فهمان إلى ضد أقول لها النهاية واحد رب الدريم كان يسوق هذا وأذن يسوق ما هذا أوقع ما معناه وحقاته أفيين ما مول قبلين تاجن أو إن شاء الله قلت لك شقق قلم ميت ما قبل ما شقق ما قبل كذا تقولي وكيسيو وأتكسر في بارك تيجي ما بقولك في Jubbaland Jubbaland تاني شو بقدر واحد كلام ما يسوق يسوق قبل كذا أنا هاي ولا سؤال عن كويتي لك ما هذا جواب ماذا كجواب قال هذا مقدشة ما أنتي جناح سجي استهلا بدنا أنتي جناح سجود وحرنا وحري اسمعناها بابورتي يدتكي سبحي أو إيماني أيا يراده ملك استوى هتلا وكيالي يدد وتجي تروح كعون جري ما أنت برنابح ما كعب سد الموجي ما إذا مدي دولتها مال والبلد يجيو بابورك سعون لها وسعون واي وحول بها هاتو أرنتون وحي كتها أنت كدلتي ودتك برنابح أي كو قيلينيين
waxaan rabnaa doorasho oo in la sameeyo saasay ku qaylinaya maantay soo ma habboona in dadkii la isugu yeero oo la isu yimaado intii beesha caalamku ay haye su-aalan ka dhigay sideed u aragtaa halka marka halka sideed u aragtaa definitely haddaan dastuurkana aanan u gafayn oo ii ogol yahay heshiis aan kula heshiiyey oo anya adigu aan ku heshiino ood saxiixdana oo jiriyo heshiiskan kugu fulinaya waana soconaya qarankana waa la badbaadinaya haddana waad arki doontaa saaxiibkay waa iska riyoonaya waa inay maalin wada haddii heshiis layaa xataa wax maalin wada dhici karaa ma jiraan sideedaba waxaa kuu soo haray taasi dastuurna maaha heshiis maalin ha wada dhacdo muhiim maahe wixii lagu heshiiye in la fuliyo adduunyaduna waxay fiirsaa majority iyo minority dhinaca kale haddii loo dhigo doorashada Soomaaliya laba maamul goboleed oo laba reer odayaal ka ah u fadhin mayso adeer doorashada waa dhacaysa haddii majority la yiraahdo inta badan isku fikra haddii qaynuun la yiraahdo wixii lagu heshiiyey warka haddii aad soo qaado international community waxay dhahayeen wixii lagu heshiiyey hal la fuliyo hadalka hor hadaad akhrisay kii maanta waa ku qoreed lagu kor shaqeeyo wixii lagu heshiiyey ku qoreed gruubkan marka hada waxa diida ninka anta saxiix ka baxay ayaa diida horta miyaadan dhageysan nimanka ma annaga kalena dhageysataa nimanka diidan oo iyaga la cado la taagan hadii qaran la hadlayo hadii cid la hadasho international community waxay u tagan danaya hore waa u tagan beesha caalamka waa u tagtay macna billah uu ka soo diiday ra'iisul wasaare uu tagay waa ka soo diiday ninkan dhahaya muxuu ahayd heshiis hoose aniga iyo isku ogeyn maya ma dhahin ayagu hal sii maad waa kana waa ku qorantaa maya hada kuwan international community ka wada horta ayagu sida Soomaaliya laga yeelayo tala ayaga u talmaha haddii cid ay madaxa u raarici jirtay wiil yaro safiir ah oo info iyo xalana jooga waa loo baahan yahay adeer wiil yaro lacagtooda meel lagu qaado markaan lacagteena aan ciidanka anaga siisan shaqaalaha anaga siisan cidda isbitaalada caawinaysa cid u diidimayso haday caawiyaan wiil yaro oo safiir ah amba wadan ka socda info ah inuu u qoro waxa Soomaaliya ka dhacay adeer markii madaxa loo raarici jiray waa dhamaatay diblomaasiyadda dooyaha wuxuu ku akaada diblomaasiyadiisa Soomaaliya iyada Soomaaliya iskale iyada ku heshiisa 4 sano kasta doorasho dhacday international community ma go'aamin dastuurkan Soomaaliya qoratay 4 sano kasta waa in doorasho dhacdo 8 February ku agta we have to do waana lagu heshiiyey waxa ku soo haray haddii fawdo laga raadsho siyaasadda sida groupkan jasiirada jooga oo maanta abaabulaya dagaalada ninkan ka haddii la diido dastuurka wuxuu galay banaanbax wuxuu galayahay qof walba xorriyada in dhibato waana iyamaha ka hadlay shirey qabsanayeen shir saxaafadeed qabanayeen madaxda caayayeen cid kasta caayayeen way hanjabayeen cid ciidan nabad sugid u dirtay ma aragtay amba mid military si toosay u baxaan airportkay ka dhoofaan waa yimaadaan laakiin arinta maanta dhacday oo signal xumay muujisay waxay ku qasbay dawladda dabcan inay wadanka ku soo rogto emergency law waana waa arinta story xataa baarlamaanku ansixiyo madaxweynuhuna saxiixo laba qof oo isalaantana la waayo oo siyaasad ka hadashay inta lixdaas bilood ka dhamaanayso awooddaasna dawladdu waa waa la dastuurka siinaya qodobka 9aad waay ee dastuurka siinaya laakiin ciidan ahaan iyo awood ahaan aan ka wada haddii ciidanka dawladda uusan wax celi karin horta ninkan in la baro waa dawladda waqti hore haddii dhamaato la kala tegi ma adeer u kaadi war u kaadi horta listen to me aan dhiga dhamasto horta dhamasto ninkan janif enemies ninkan aamus fiiri adeer baarlamaanku wuxuu jirayaa inta baarlamaan kale laga keeno waana sax waa qaanuunka caalamka oo dhan dawladdana dawlad un baa bedeli kartee si 8 February sida arday dugsi laga fasaxay naqamayna ku kala tagi mayno meesha qaranku ku kala tagi waa technical time hadda xasan September time buu ku akaa 8 February maxaa loo kala tagi waayay ninkan weyd u kaadibal warku ninkan u kaadiya u kaad shaqa socota gudiya waa socoya gudigi dawladda waa socota hadda gudiya ninkan dood ma yaqaan ha sugo doorasho maaha 10 September waxay aadeen madaxweyne la doorto xasan wuxuuna gaaray 8 February waa 6 months haddana dawladda doorkeeri qaybtii doorashada uga aadaneed way samaysay guddigii qaybtii ku aadaneed magacawday hotel ay geysay tababaray u furtay waa isu keentay tababarkii u xirtay technical timekeedii iyadu maalin may beerdareen haddii laba maamul goboleed diidana macnaheedu maaha aqlabiyadu 329 waaye dawladda waxa yani meelaha doorashada ogol 200 in ka badan ka soo baxaysa gobolada hadda maamulka Jubbaland maadaama dawladda Kenya xiriirka loo jaray
طبعا ciidamadoodan waa baxayaan waa ku qasban yihiin waayo inta diblomaasi baxo ciidamaduna ma joogayaan waa ma santay marka doorasho ma ku dhex kartaa